maxkamadda gobolka Muqdisho ayaa xukun iyo ganaax lacageed ku riday 5 eedeysano oo hore loogu soo qabtay inay ugaarsanayeen harimacadyo waxaana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaana xukunkaasi ka hadlay garsoorihii dacwadaasi qaadayay xubin ka socday xafiiska xir ilaalinta xukunka maxkamadda gobolka Muqdisho Hargeysa waxa si waafaqsan qodobka 123 xeerka habka ciqaabta ay dambi ku heshay dambiilayaasha kala ah علي محمد كوثر إن شون سهلت دبي أفرتنشرة شينا عبد حسن إن آمنة عبد الله شنيلا تنشرة شرماكي يوسف إسماعيل إن بصرة عبدي لحيلا تنشرة عبد الرحيم شامع ياسين إن عنب عبد الله لحيلا تنشرة أحمد عبد الله سعيد إن قديش عبدي تدبي سدنشرة يا عبد الداق حاشي أو مقناه هو سوق في قضبة سديدية طبعا تدبي لاتن سديدية لاتن حيل برسجالي لحدن لبض كونشانية طبعاً محكمة waxay ku xukuntay shanta dambiile ee goobjooga midkiiba hal sano iyo 3 bilood oo xarig ciqaabeed ah iyo min 3 milyan oo ganaax maaliyadeed ah oo lagu shubay khasnada dawladda hadii ay bixin waayeen loogu bedeli doono xarig ciqaabeed u dhigma maxkamaddu waxay ku xukuntay Cabdi Deeq Xaashi oo maqana ah 2 sano oo xarig ciqaabeed ah iyo 3 milyan oo ganaax maaliyadeed ah haduu bixin waayo loogu bedeli doono xarig ciqaabeed u dhigma maxkamaddu waxay ganaaxday labada gaari ay ku sideen harimacadka midkiiba 1 milyan oo ganaax maaliyadeed oo lagu shubay khasnada dawladda maxkamaddu waxay ku wareejisay 6 xabo oo harimacadka ah oo ka nool 9 xabo ee lagu soo qabtay xukunsanayaasha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada si loo daryeelo loona xanaaneeyo ana magacaygu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ku xigeen xiraliye guud xiraliye dacwadan gaarka si gaarana ugu qornaa maanta waxa lagu dhawaaqay dacwadan ciqaabta ah oo la fulinayay xeerka duurjoogta xeer number 69 2015 shaneedaysano goobjoog ahaa iyo mid maqana shanteedaysana midkiiba waxa lagu xukumay 1 sano iyo 3 bilood iyo 3 milyan waanu ku qanacnay xukunka eedaysanaha maqan Cabdi Deeq oo isna 2 sanadood iyo 3 milyan lagu xukumay waxaan isagana ka hawlgali doonaa soo qabashadiisa isna xukunkiisa waanu ku qanacnay sidoo kale labadii gaari ee lagaga hawlgalay soo gelinta iyo dhoofinta iyo ka ganacsiga harimacadkan oo labada gaari oo kala ahaa midna sarf ahaa midna nooha ahaa midkiiba waxa lagu xukumay iyagana 1 milyan saadarteed xukunka maxkamadda ka soo baxay waxaan u aragnaa in xukun cadaaladeed ahaa waana ku qanacnay waxaanu ka hawlgali doonaa fulinta xukunka dhankooda waxa iyagana xaggaasi ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maxkamadda gobolka Muqdisho waxay xukun ciqaabeed ku dhawaaqday 5 dambiile oo lagu soo qabtay degmada Xaaji Saalax taariikhdu markay 16 bisha iyagoo doonayay inay dalka sifa sharci darro uga saaraan 9 harimacad oo ay doonayeen inay dalka dhoofiyaan runtii wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyadoo kaashanaysa laamaha kala duwan ee dawladda gaar ahaan ciidamada kala duwan ee qaranka waxay hadhiyo habeenba waxa weeye heegan ugu jirtaa sidii mayeedhaanka duurka laga soo qaadayo loo badbaadin lahaa bil gudaheed weeye xukunkii labaad baynu fadhinaa waxa halka ka muuqata sida iyaguna bahda garsoorku oo ay ugu horeeyaan waxa weeye maxkamadaha iyo xeer ilaalintu ay ugu heegan yihiin in waxa weeye cid wal oo khayraadkeena dalka sifaan sharciyan uga saareysaba in talaabo sharciga laga qaado runtii fariintan mid la mid baan mar walba dirnaa oo ugu mahad celinayno bulshadeeda waxa weeye sida dhow wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo ciidamada kala duwan oo la shaqeysa warbixinta soo siisa khayraadkooda ilaaliya waxa weeye meel walay ku sugan yihiin baan mahad celinayna sanadkan waa markii saddexaad ee aynu soo badbaadino duurjoogta loo yaqaano harimacadka oo runtii adduunka oo dhan ka sii dabar go'aya geeska Afrikana oo caan ku ahaa laakiin iminka waxa weeyaan farbaas lagu hayo qaranku wuxuu u soo jeestay isagoo isku duuban ilaalinta hantida qaranka iyo khayraadka oo ay ugu horeysa duurjoogto Caamir Cabdirashiid Cabdullaahi Camreebash Saab TV Hargeysa qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama
islaam una dir hal shan eber.